بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سورة الفيل مكية وآياتها 5. سورة وحى ليلة سورة الفيل بالليلة هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحانو ميشان قبل الله بينا سورة الفيل ليلة هذا وسورة مكية سورة داني nabigeena calayhi salaatu wasalaam intuusan soo hijroonin ka hor bay ku soo degootay. asxaabul fiil qisadiisay ka hadashaa. asxaabu fiil waxaa la yidhaahdaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sanadkii ou dhashay qolo kacbada weerar ku soo qaadeen oo gaalo ah. waxaa qoladaa xukumi jiray waxaa hogaamiye u ahaa nin la yidhaahdo abrahatul ashram gaal la yidhaahdo. waddanka waxa weeye yaman ayuu xukumi jiray ninkaasi. ninkaa wuxuu ka masayray siday carabtu kacbada u maamuusahayaan. wuxuu dhisay kaniisad waddanka sancaa ul yaman la yidhaah ayuu ka dhisay sancaa. markaas ayuu yidhi dadka xajinaya oo kacbada aadaya oo dhammu inta ha soo aadeen. nin qurayshta ka mida ayaa ka xumaaday baa la yidhi. wuu soo baxay habeen madow ayuu soo galay kaniisaddii xunka aheeduu dhisay. markaas ayuu qashin iyo saxaro iyo wax ku dharoobay derbigeedii iyo nijaaso isagoo xaqiraya. waxaa arrintii maqlay abraho. wuu ka xumaaday. waxalafa an yahdima alkacba. wuxuuna ku dhaartay inuu kacbada dhan soo dunduminayo. wuxuu diyaarsaday abraho ciidan aad u fara badan oo uu doonayo kacbada inuu ku soo weeraro. ciidankaas wuxuu ka koobnay sida ay taariikhdu caddaynayso iyo siiradu 60,000 oo ciidana 60,000 jundiyin 60,000 oo ciidana iyo 13 maroodi ama 9 maroodi. maroodiyaal loo carbiya dagaalka oo halka xaboo ka miduhu derbiga adduunyada derbiga ugu xooga badan hadduu qabto waa jijabin hayaa. maroodiyaalka iyo ciidankaas bay soo wateen. meel maka u dhow markay joogaan reer mako dadkii ahaay way carareen. buuraha iyo meelahaas bay ku carareen. nabiga awowgiis cabdulmudalib baa markaa ra'iiska ahaa, odayga ugu weyn ahaa. waa ka baxeen magaaladii ayagoo ciidankaa iyo sadwadooda ka baqahaya. ciidankii abraha oo watay markii ay damceen inay kacbadii weerarka ku soo qaadaan oo meel u dhow ay marayaan ayuu maroodigii ugu horreeyey wuu fadhiistay baa la yidhi. wuu fadhiistay. haddii la kiciyo la maago xagga kacbada ha loo wado wuu fadhiisanayaa. ma socon hayo. haddii meel kale loo wada dhinac kale loo jeediyana waa iska istaagahayaa. ayagoo yaaban oo ama kaagba haysto oo wax ay sameeyaan oo qoola ayay korkooda ka arkeen shimbiro yaryar oo heehaabaya bay arkeen. shimbirahaas oo yaryara oo madmadow. shimbirahaas oo waxaa la yidhi shimbir kastaba ay wadato 3 dhagax bay wadataa. 1 dhagax gafuurkay ku wadataa. 2 dhagaxna lugahay ku wadataa. dhagxaanta ay wadataa madaafiicda adduunka lagu dagaalamo kuwa ugu casirsan way ka xoog badan tahay. dhagaxu ma weyna. raashinka iyo ganleyd misagada yararka ama ganleyda agteeda digirtaan rabaa oo la eg yahay. dhagax walba waxaa ku qoran qofka uu dili lahay magaciis. dhagaxu qofka ma seeraynayo. shimbir walba waxaa loogu talagalay 3 qofood inuu toogto oo halaago ayaa loogu talagalay. shimbirihii dhagxaantii bay ku bilaabeen gaaladii. dhagaxu wuxuu ku dhacayaa qofkii loogu talagalay. wuxuu ka gelayaa maskaxda. wuxuu ka baxayaa duburka. markaasuu isagoo googo'ayuu dhinac u dhacahayaa. waa baabay ciidankaasu. qisadoodiina waxay noqotay cibratan lilmuctabiriin. dadka cibro qaadanaya taariikh bay u noqdeen. waa baaba'een. waxaa ka badbaaday baa la yidhi maroodigii kacbada xaggeeda inuu u kaco diiday baa ka badbaaday. abraha isagoo dhaawaca buu cararay. markuu waddankii sii tegey oo uu yidhi sidaas baa ku dhacday ciidankiina isagana wadnihii baa jeexjeexmay wuu dhintay. ciidankaas musiibaa ku dhacday. ilaahay haddii uu doono diintiisa ilaahay hadduu iraadeeyo inuu difaaco
dadka mujrimiinta oo diinta qarribahaya oo muslimiinta qarribahaya oo masaajidda ilaahay qarribahaya oo diinta dullaynaya ilaahay baa waxa weeye waa oon loo kaadinayaa dembigaa loo badinayaa maahane ilaahay baa halaajinhaya waa ilaahay halaagooda wax agtiisay ka yihiin ma jidho qowmu nuux baa la halaagay waxaa lagu halaagay waxaad og tihiin waxaa la halaagay qowmu thamuud qowmu nuux biyo ayaa lagu soo daayey fircoon iyo wixii la socday baa la halaagay biyihii badda ayaa iyagana lagu furay oo markay soo galeen lagu amray baddii baa laysku soo daayey oo ku baabi'een qoomkii oo waxaa la halaagay la odhan jiray qowmu thamuud malag baa ku qayliyey qowmu luud baa la halaagay ayaga dhan dhulkiibaa inta kor baasha jibriil hoos ka geliyey ay markay hawada u dhow yihiin baa la soo rogay hal mar qolo kasta oo diinta islaamka hor timaada oo ilaahay ambiyadiisa ka hor timaada oo masaajidda ilaahay inay qarribaan go'aansadaan oo jaamaca ilaahay hoos u dhigaan ilaahay waxuu doono ayuu ku halaajiyaa kuwa hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam fadeexadiisa iyo diinta islaamka iyo muslimiinta sharaftooda meel uga dhacahaya annagaa nala ku imtixaamayaa annaga ayaan dad fiican ahayn annaga ayaan ilaahay jidkiisa ku toosnayn ma ahane ilaahay waxa weeye ayagu waa ka amaalmarinayaa laakiin ummadihii hore waa la dhibi jiray waa la garaaci jiray miishaar baa lagu kala goy jiray madaxa ayaa la kala dilaaci jiray ilaa ay dhahaan mataa nasrullah alaa ina nasrallaahi qariib marka inaan sabarnaa loo baahan yahay inaan diinta ku mitidnaa loo baahan yahay qoomkii kacbada ilaahay soo weerareen oo dhaheen beydka ilaahay baan dunduminaynaa ilaahay xayawaanaadka kuwa ugu tabarta yar oo shimbiraha ayuu ku soo diray way halaagsameen way cirib go'een sanadkaas waxaa ku dhashay caamulfiil baa sanadkaa loo bixiyey sanadkii maroodiga ayaa la yidhaahdaa maxaa yeelay ciidanka kacbada soo weerareen maroodiyaal baa ka mid ahaa way cirib go'een waxaa dhashay sanadkaas dhexdiisa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam hadda waxa weeye 50 habeen buu ka dambeeyaa la yidhi sanadkaas isla sanadkii gudihiisuu dhashay waaqicadaas 50 habeen muddo ka dambaysa ayuu dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa suuraddaani nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadii ku dhacday qoladaas wakhtigaa ayaa loo sheegay oo looga sheekeeyey sidaas baa la yidhaahdaa waana tan qisadii ka dhacday wakhtigaas dhacday oo rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam suuratu lfiili makiyatun wa aayaatuhaa 5 suuraddan waxaa la yidhaah suuratu lfiil fiilku waa maroodiga magaciisa 5 makiyatunna weeyo waa suurad makiye ah oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qabla alhijra bay ku soo degootay aayadaheeduna waa 5 aayadood oo qura bismi illaahi araxmaani araxiim alam tara ay alam taclam miyaadan ogayn miyaysan ku soo gaarin nabiyullaahi moxamedow ilaahay wuxuu ku sameeyey hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku dhashay waa la wada yaqaanaa waa maka almukaraba bishicbi abi daalib meel la yidhaha ayuu ku dhashay baa la yidhi sanadkou dhashayna caamulfiil baa la yidhaahdaa bishow dhashana bisha islaamka rabiicu alawal khilaafbaha ku jiray ayay u badan yihiin culamaa'u taariikh nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhdan 2006 hadda cagacagaynaysa waxay maraysay markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam 571 bisha 4 oo abriil ayuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam 20keedii ayay taariikhuhu qorayaan bismi illaahi araxmaani araxiim alam tara ay alam taclam miyaadan ogayn miyaysan ku soo gaarin kayfa sidii facala oo ku sameeyey rabbuka rabbigaagu nabiyullaahi moxamedow biasxaabi alfiili maroodiga kuwa u saaxiibka ahaa maroodiyaalka kuwa u saaxiibka ahaa maroodiga kuwa u saaxiibka ahay baan rabaa oo kacbada ilaahay soo weerareen ilaahay wuxuu ku sameeyey wixii ku dhacay masaa'ibtay la kulmeen miyaadan ka warqabin nabiyullaahi moxamedow calayhi salaatu wasalaam
ألم يجعل إلهي ميوسا كييل كيدهم هجرتودي كيدهم دقر إيا هجر وإسلام دقرنا واديه كرتين كيدهم دقرتودي إيا هجر دامدودي في تضليل وحلمي dhexdeed miyaan rabbi ka dhigan waa lumay wax lagu qasaaray hagartoodii noqotay dhagartii ay damacsanaayeen oo ay ilaahay beydkiisa iyo muslimiinta u maleegahayeen ayagii bay ku laabatay ayagii baa ku qasaaray ayagii baa ku cirib go'ay ayagu waxay rabeen inay diinta cirib gooyaan laakiin ayagii baa la cirib gooy sidaas weeye walaalayaal diinta ilaahay baa u heelinaya subxaanahu wa ta'ala wa arsala ilaahay ألم يجعل إلهي ميوسن درن ميوسن يلين بان رباه كيدهم هجرتودي في تضليل بعد دحدة ألم يجعل إلهي ميوسن كيلين كيدهم هجرتودي في تضليل بعد يلومتان دحدة وأرسل إلهي ميوسن درن عليهم دشوا ضيرا شنبره أبا بيلا جوتا أما كوح صعنا يويا oo isdaba joogan waa shimbiro isdaba socda baa la yiri firaqan wa jama'at ba'daha fi isri ba'd isdaba socdaan tarmiihim shimbirahaas oo tarmiihim ku gamaysa gaalada bixijaaratin dhagxaantaas oo min sijilin dhoobo la dubay oo kulul ka samaysan weeyaan dhoobo la dubay ka samaysan tahay diinan mutaxajir dhoobo oo dhagax noqotay oo dab ah ay dhagxaantu ka samaysan yihiin fajacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay kacasfin bal oo kale balkaasoo ma'kuulin ee la cunay weeyaan bal inta la cunay xoola calaliyeen ee markay calaliyeen oo budan noqday ay tufeen oo kale noqdeen ayagoo buda ah oo burburay oo googo'ay oo nafti ka wada baxday oo mayd ah ay dhulka ku wada dhaceen taas looga jeedaa